السلام عليكم أصحابتي قالك أسول هذا وحرجينا أن في عنتين حردينا دقيقة كسول هذا فيديو هنا مانتا waxaa inagu soo foolay tobankii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan saan dhamaanteen wada ognahay tobanka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan muhiimad aad weyn ay inoo leedahay iyo fadli aad u fara badan oo aan la soo koobi karin waxaa wax laga xumaadahay in tobankan dambe ee aad u qiimaha badan ee bisha Ramadaan ay nagu dhaafaan wax aanan micno la sheeg lahayn iyo hawlo adduunyo inoo ka daba cararayna qof walbo mas'uuliyad iska saar inaysan si fudud ugu dhaafin oo aad ka faa'iideysato ajarka iyo xasanaadka ay leeyihiin tobankan maalin iyaga iska yaree waaba toban oo kaliya waana waqtigii uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu adoomadiisa tusinayay naxariistiisa cafintiisa dambi dhaafkiisa iyo ka xoreynta naarta waxaa inagu soo fooday tobankii maalin ee ugu dambeysay ee bisha Ramadaan waxaana ku sugan khayraad iyo ajar fara badan waxayna kaloo leedahay fadliyo aad u ballaaran sida daraaddeed waxaan isku dayi doonaa inaan wax ka tilmaano fadliga tobanka dambe iyo waxyaabo u khaaska ah ee bisha barakeysan ee Ramadaan qodobka koowaad sameynta i'tikaaf ama kunagaanshiyaha masaajidada i'tikaafku waa adigoo laazima masaajidka oo waqti u hela cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala iskagana fogaato adduunyada iyo dhibteeda tobankan dambe muslimiintu waxay doortaan inay ku dhameystaan i'tikaaf waana sunno ka sugan kitaabka Ilaahay iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadiisi ayaa waxay sheegayaan in nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa haatee uu aad ugu dadaal jiray cibaadada walibana in ka sii badan dadaalkiisii waqtiyada kale marba hadii nabiga Ilaahay sida uu sameyn jiray inaga maxaa inuu diiday inaan laba jibaarno saddex jibaarno waxyaabo wanaagsan ee sameyn jirnay in ka badan waqtiyadii hore intii loo guda jiro tobankan maalin ka badan intii hore dadaal far badan aan ku bixino saan u kordhin lahayn cibaadadeena iyo amalkeena wanaagsan kuna dadaalno cibaadadeena dhanka wanaagsan iskagana fogaano waxyaabaha ina mashquulinaya oo ah adduun iyo hawlihiisa waxa haboon cidii uu waqtigu u saamaxayo ama waqti u heli karta inay sameyso i'tikaaf kuna nagaato masjidka tobanka beri ku dadaal tobankan beri inaad kordhiso cibaadada dhan kasta inaad ilaaliso salaadaha sadaqada baxsato dikriga iyo xuska Ilaahay aad ku dadaasho intaadan i'tikaaf sameynin waxaa muhiim ah inaad soo barato ama aad daraasiiso shuruudaha i'tikaafka ayna ugu yihiin in aad masaajidka uga soo bixi karin ilaa arin daruuri ah ay imaado sida booqashada qof xanuunsan inaad ka qayb qaadatid janaazo inaad doonatid musqul ama weysiqaad iyo inaad doonatid cuno iyo raashin hadii masaajidka laga helaynin daraasay intaadan sameeyay i'tikaafka oo baro shuruudihiisa qodobka labaad raadinta laylatul qadr habeenka laylatul qadr waa habeen muslimiinta aad ugu weyn oo muhiim u ah waa habeen ka khayr badan kun bilood waana habeenka xurmada ee ku jira kalendarka muslimiinta waxayna ku jirtaa tobanka dambe ee bisha Ramadaan habeenka laylatul qadriga waa habeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u muujinayo naxariis aad u fara badan adoomadiisa habeenkan uu ugu talagalay si ay ugu faa'iideystaan fadligiisa in aad si dhab ah Ilaahay ugu cibaadayso quraanka aad u akhriso tasbiix iyo salawaad fara badan aad sameyso dukatana salaadaha sunnaha ah waa ficilo aad faa'iido u leh oo la sameyn karo habeenka taariikhda saxda ah ee laylatul qadriga wali lama oga laakiin waxa la sheegay inay dhacdo tirada kisiga ah ee habeenada ugu dambeeya ee bisha barakeysan ee Ramadaan sida 22 23 25 27 iyo 29 waxaa jirta duco caan ah oo uu rasuulku nafarayo inaan aqrino habeenka waana Allahumma innaka afuwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu anna akhriso oo ku duceyso ducadani waa ku muhiim laazim oo ha ka tagin qodobka saddexaad sadaqa badan baxso intii karaankaaga tobanka dambe ee ugu dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan waa fursad uu qofku ku gaari karo faa'iido aad u qiimo badan oo ah inuu sadaqa baxsado siiyana ku u baahan asigoo raadinaya farxadda iyo raali aanshaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala sadaqadii aad baxsato waxa lagu jibaaraya 70 ha yareysanin amal kasto wanaagsan ee aad sameyn karto sameey sidoo doon ha u yaraadee sababtoo ah qiimihiisa ma garan kartid adiga sameey wuxuu doon ha ahaadee Ilaahay waxa inoo waafajisaa wixii khayr inoo ah adduun iyo aakhiraba Ilaahay inaga dhig kuwii haleelo oo la kulma habeenka qiimaha badan ee laylatul qadri aamin ya rab waa hagaag asxaabtayda qaaliga waxa rajeynaa inaan ka faa'iideysano fadliga iyo qiimaha aadka u weyn ay leeyihiin tobankan beri ee ugu dambaysa bisha barakeysan ee Ramadaan insha Allah waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan halkaas ayuu ku egay videogeena maanta waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo like sar videoga subscribe sar channelka sina share gareey videoga hadii aad karto waxay naga caawinaysaa inaan si fudud u korno aad ayaad ugu mahadsantahay daawashada videoga waxaan ku leeyahay ka faa'iideyso fadliga ugu tobanka maalin ugu dambaysa ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxay noo balana videoga xiga maca salaama